والله waxa iiga farxad badan tahay malahan kursigan siyaasadeed iyo dhibka iigu gaaray waxaas oo dhan waxba iigama muuqdaan ilaa dadka shalay idinka waxa tihiin igu qalqaalinay saaxiibada anoo shaqooyin kala joogo igu garabsiiyay inaan noqdo ila jeclaaday baa tihiin inta wanaaga iyo waxa igu tilmaamteen qof kaste ma ihi waxa rabaa Ilaahay inuu iga dhigo meeshaas ay meel ka sareyso inta ila jeceshihiin Ilaahay ha iga dhigo midda kaleeto aniga wixii soo gaaray waa wax idinka dhan idin soo gaaray waayo magaciina iyo mansabkiina baa ku joogay meeshan waxa laga yaabaa maanta in muuqaalkaygi wax yar uu iska bedelay igu taqaaneen laakiin qalbigayga ma isbedelin alxamdulillah sideedii ay idinahay markii degmada ay al-shabaabka qarxiyeen waxa ku iri guriyahaas jajabiseen anaga wali waa noolna waana shaqeynona haddana waxa leeyahay maqaarkaygi wax yar yar oo lafi iyo waxa baa gaarsiiseen laakiin qalbigaygi intii far ayga nooshahay insha Allah sidiisii u ahaan doona waana ku wada dagaalami doona insha Allah dhamaanteen oo isku duuban aan wadanka u duceeyno wallahi inaana daawo ku caafimaadina waxa ku caafimaad ducadiina iyo garab istaagiina wax la ii qabanayo way iska yareed shaqada la ii qabanayo si fiican la iiga taxadiray dad aad noo jecel u tagay oo Ilaahay khayr ha siiye xitaa mid kamid ah wuxuu igu yiraahday Zainab wadankii ku laabana markaa dhahay wuxuu dhahay intuu naxay wuxuu yiri wadankii sidan ku soo noqotaa inta shaqo kaaga raadinayna ee iska joog ka saxa ku yiri qof kasta oo wadankeena dhibaa ka socdo uu soo kabcaaya hadda anaga dhan wada cararno maxaa la yiraahdaa wax u shaqeynay qaranki malahan wax qofka dambe iga dambeeyo oo Zainabyada kale iyo caashooyinka kale caliyada kale dhalanay meel soo maraan ina u diyaarino waa anay wili ma arkin gabadheeda wili ma arkin maanta oo dhan waxa ku faraxsanahay dadkiina idinka ina idinla joogo oo garab ii aheedeen shalay ii soo duceynayseen ducadiina wax badan ku noqday qof walba oo garab qabtay oo faataxa ii soo maray ama ila murugooday khayr Allah siiyo ducadiina wax badan ii qabatay marna kama quusan doono siyaasadan kala xagga aska dhigno laakiin aniga waxa waaye meesha aan joogo waxa joogan ummad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah kuwaas shaqo iiga baahan waajib waaye isaaran oo Ilaahay maalintii haddaan dhiman lahaay ugu xisaabtami lahaay waa iska joogo waxba ma noqon lahayn laakiin waa ugu xisaabtami lahaa qabrigaas marka galo walaali adaa dadka soo fadhisay maxaa u qabatay marka inta qaban karo Ilaahay ha ila garab galo idinkana wiligiin boo ila garab galeyseen insha Allah insha Allah aan iswada garabsano Cabdinuur uu ku mahadsan yahay agaasima liibaan dhamaan iyo inta kale inteenan waxa waaye howlo kale inay ku jirnaa laga yaabaa laakiin kadisa ay iga dhigteen mar kale waxa idin leeyahay intiini soo abaabushay sida ii jeceshiin Allah idin jeclaado